suurahana waa laga fiican yahay nin ragi ma suuroodo si fiican buu ninku u hadlaa eerkaada waxa ka jirta inta qarashan kugu bixin jiray rag dhalay muxuu yiri rag dhalay way ma arta waa xiniya dhaaf wuxuu yiri 20 sikin baad soo qaldantay qurux ku dhiglow 20 sikin baad soo qaldantay laakiin xisaabta gasho oo ogow 200 oo daqiiqadood inaan ku soo wacayo 200 oo jeer markaad isoo wacaysid islaan hinaasan oo aan kala la guursaday ma tahay ya saad isoo wacaysa waayo gabadha markay masiirto ama ay hinaasan tahay waxay wacdaa ninkeeda marna masruuf ay ka raadisaa marna way caaysaa maalintiina sida ruux waalan oo kale 100 jeer ay wacdaa marka adiga 200 oo jeer markaad isoo wacaysid ma islaan aan la guursaday tahay saad isoo wici kartaa 200 oo jeer mustawaha ragga wuxuu ku qurxoyaa inaad dhahdid 200 oo jeer aan ku soo fariisana anigoo ku karbaashay laakiin maxaad iga soo wacanaysaa ma gabadhan shukaansada tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وويلكيني وولالكيني بقرطوية in the house ولا الله نولشة شخصياتك قلبي وناكسن انت السماء وصاحبك the family empire boom boom in the building بقرطوية ذا بعد وين سيد سماني اي كل هانتاي ايان صدري اي لابتا اذن كغسو سلامي سبسكرايب كان اي لوين لايك تنا ود حلقة كلية ان كوغو ليهاي لايك تا ايسار كومنتيغانا ماشي كومنتيغا كو دحرفو idinka iska leh waayo wehel iyo walaal idinka igu dhow taamarkan ka gudbo asxaabtayda waxaan rabaa hal iyo laba inaan ka dhaxo muuqaal uu sameeyay Lakaha Media iyo mid kale ay dhahaan Boodari muhiimadda waxay tahay walaalkaada markuu ka soo hadlo inaad karaamada ka qaadino waayo Ilaahay wuxuu yiri bini'aadanka waa karaamay sifaad u gooni ah iyo xigmad u gooni ah oo Allah ku amaanay ayuu ku karaamay marka ruuxa bini'aadanka karaamada laga ma qaado waa loo jawaaba marka waxaan rabaa inaan ku hormaro Lakaha Media iyo Imran hal ilaba wuxuu aniga iga dhahay iyo wuxuu iga aaminsan yahay anigoo jawaabtiisa in ku filan siinay xadkan aan dhaafaynin bal ila daawad waxaan ahaa qof xogogaal ayaan ahaa laakiin Soomaalidu waxay ku maamahdaa oday reere u weyn iyo umulisa siday wuxuu og yihiin waxba uma sheegaan waxaa jira dad kale oo meelaha ka yiri nin isagu shaqo kale aan lahayn in uu talentigiisu uu branki yahay iyo sheeko noocaas ah oo aniga iga dhigayay inaan branki samaynayo iyo Maxamed Buskud iyo Bahalki qurux ku dhigle adiga si gaar ah insha Allah kuugu soo qalab qaadan doonaa laakiin waxaad samaysay iyo sidaad u hadashay raganimada kuma jirto damiirkayga aqligayga bababa suurihii gabadha aad ka baratay inaad meesha la timaadid aad baa looga fiican yahay marka aad hadlaysid waa inaad si raganimo la u hadashaa daacadnimo u hadashaa waxa aad ogtahayna ka hadashaa horta walaalkayga waxaa tiri sida ragga oo kale inaad u hadashaa wanaagsanayd waayo xeerka ragga ma ahan qaabkaad u hadashay horta xeerka ragga inaan wax ka baro waaye xeerka ragga waxa waaye siday dumarka iyo caruurta iyo birmageydada ay ugu naxariistaan adiga hadda xeerka ragga ku dhacay waayo anigii adigaan is haysanaa laba rago wada hadlayaan nahnay saa ay tahay gabar ka maqan walaashaada ah dib la'aan kula dhalatay ayaad meesha keenaysaa oo aad leedahay suuraha iyada ka baratay marka adigaaba xeerkii ragga ku dhacay haddana waxaad isku dayaysaa aniga inaad i waanisid teeda kale waxaad igu tilmaamtay inaan suuroodo horta nin suurooda inaanan ahayn intaanan afkayga ka cadaynin adigaaba noo cadaynay waayo kilib aad duubtay jira bal adiga isdaawo sidaad libinta igu qiraysid nin suurooda inaanan ahayn adigaaba ii qiraay bal kilibkan ila daawo inta hadda ugu gudubno bal saaxiibkii qurux ku dhiigle iyo waxaan u gudbaynaa guurka hadda iyo xaaladda dhalinyarada maanta jooga oo telefoonada beer salaaxa ah haysta dhaqankooda hay qurux ku dhigle asxaabtayda sugsuga gudbin qisha idin haya gabar haday ku dhahdo meerkayga 15 waay ama 20 waay waxa dhahda buuqa oo la soo baxay maalinta isbarnaysiin illa ay guurka diyaar u noqoto inta qarashkaaga soo baxay meel lagu qorta hadhow waxa leedahay meerkaada waxa ka jirta inta qarashka kugu bixin jiray rag dhalay muxuu yiri rag dhalay way ma arta waa xiniya dhaaf wuxuu yiri
ilaa maalinka ku baratay bajaaj xagga baba ka qor buu yidhi ka qor liis dhan halkaa jooji hadhow meher badan markay qabsatay waxaa tidhahda horta intaas xisaabta maalinka noocaas iyo nooca dee soomaaliya markii la joogo weli wax la isugu tuuraa EFC iyo sahal saadi waxbaa la isugu tuuraa ka qor soo koobiyey intaa saasuu leeyahay qorax ku dhiigle haye waxaa i tiri rag dhalay xaniya dhaaf waxaa la dhahaa ruuxa raaginimadiisa ay banaanka ku dhacday yaa xigmad iyo karti iyo dadnimo u saaxiibka ah marka adigii shalay sida ay ammaanayeen inaa maantana suuro igu caysid horta waa kugu garaadeeri iyo waa kugu xigmad xumo suurahana waa laga fiican yahay nin ragi ma suuroodo si fiican buu ninku hadlaa raganimu ku hadlaa waxaa ka jirta inta qarashan kugu bixin jiray rag dhalay muxuu yidhi rag dhalay wey ma artaa waa xiniya dhaaf teeda kale carab iyo ilkaa dad iskugu dhowow xeerka ragga waxaa waaye labada qof markay isqabtaan inaad koolka ku dhufatay oo aad tiraadid bal walaal fikir baa la timid anigana fikir baan wataaye maxaa khaldan xeer hoosaaday dadka wax ku saxaan laakiin ruuxa si public ah markuu ku waaniyey adigana si public ah wax loogu sheega waayo aniga hadafkeyga iyo ujeedkeyga wuxuu ahaa war ilka iyo runba waa la caddeeya waxaani kala caddeeya codadkan aad la wareegaysaan waxaa ka qiimo badan hadalka inuu cad yahay cabdisalaamka soo fariisiya yaa caruurtii soo fariisiya kamaal aabihiisana sababta ku kaliftay inuu video duubayna noo caddee waa sababta dhalisay inaad youtube cabdisalaam soo fariisisid markaan hadalka aniga aan bulshada la hor imid anigaa kugu kalifay inaad cabdisalaam bulshada hortiisa keentid mooye waxaad rabtay inaa waxaani musalsal noogu dhigto maalin walba xalqadna siiso marka walaalkeyga aniga taladeyda waxay ahayd war bulshada runta la wadaago birta intay kulushahay qalooci intaa ila fahmi wayso xumaan iyo aflagaada ay ugu jawaabtay waxaa jira dad kaleeto oo meelaha ka yiri nin isagu shaqo kale aan lahayn in uu taalantigiisu uu baranki yahay iyo sheeko noocaas ah midda kale aan ku daraya waxay tahay waxaa i tiri waxaad tahay ruux taalantigiisa uu yahay branki horta branki ruux taalanti leh ayaa samayn kara waayo branki cid walba ma samayn karta aqli karti iyo hal abuur u baahan yahay waayo aqli iyo karti iyo hal abuur inuu u baahan yahay waxaa tusaale kugu filan brankiyada aan sameeyey mid ka mid ah ayaa gaaray 1 milyan waxaan kuu sheegaya in hees ma ahan waa branki 1 milyanna adiga waxay kugu qaadan kartaa 30 video ama 40 video inaad hal sano ku samaysid marka brankiyada naftirkeeda aqli iyo garaad ay u baahan yihiin ujeedka hadalkaygana wuxuu ahaa war 100% arrintan aanan sal iraad meel ay u socotay iyo meel ay ka bilaabatay aanan la ogeyn war waxa ku daawanayo waa bulsho Soomaaliyeed ya xayawaan ma aanay waa dad garaadkoodii shaqeynay walaalow banaanka keeno waxaan kala caday kuma xad gudbin kuma nacaynin 100% qaabkay u socotay waxaan pranki u eegin way cadeyn buuxda ma lahan 30 ka dhiman ayaan jaanis ku siiyo inaa wax ku kala cadeysid laakiin percentage ka xisaabta wax lagu qiimeeyo walaalow haddaad ila fahmi wayso inaad dhicaysid xaq u liid anagu Sweden baan ku noolahay Sweden baan joognaa xaadir baan nahay meeshii ka dhacay dadka aan ka waramayay waa dadkii aniga dalka markaan soo galay soo dhaweeyay ma aha anigu dadkaan ka waramayay dad iga dheer iyo magaalo kale dad jooga iyo dad Soomaaliya jooga Kenya jooga Nairobi jooga bahalkii jooga macnaha aan iraado Australia jooga ma aha xaqiiqda dhabta ah markaan kugula hadlo waa dadkii aniga magaalada markaan soo galay dalka dadkii soo dhaweeyay dadkaan ka hadlayay waa dadaan xog dhaba ka hayo oo si fiican u ogahay ma ahayn anigu inaan mala awaal ka hadlayay ma ahayn marka inaad wiilkan saaxirka ah oo macnaha gabdhaha weligii dhibaateyn jiray oo salma la jeclay youtuberadu way og yihiin shacabka qaar bay ka qarsoon tahay laakiin dhibaatadii uu ku sameeyay iyo foolxumadii uu ku sameeyay iyo ceebteedii haddana aan soo bandhigayno adigoo ka hadlaya inaad annaga nagu dul geftid oo noogu dul geftid ma ahayn horta walaalkayga aniga ciilkuuma qabo waxaa tahay shakhsi aan kor iska naqaano contact fiican aanan lahayn laakiin aniga waxaan diidanahay xadgudubka haddadan aad hadlaysid qadaf baa kaa dhacay waayo daniga ilaahay wuxuu dhahay daniga iyo malaha waa wax laga fiican yahay ilaahay u xaaraantinimeeyey waayo wiil walaalkaada waxaad ku leedahay waa saaxir meeshuu wax ku sixiraya maa joogtay maya waa dani malahana allah subxaana wa tacaala xaraam u dhahay teeda kale waxaadan garanaynin uusan garaadkaada ku siinaynin sixirka in uu ka adag yahay jacaylka
waxaa laga yaabaa gabadha yaa in jacayl xadkii dhaafay ay wiilka u qaaday marka jacaylka inuu ka awood badan yahay xitaa sixirka haddaad garan lahayd wax un baa fahmi lahayd hadalkayga muhiimadiisa waxay tahay haddaad garanaysay hani iyo cabdisalaan dadkii kugu soo dhaweeyay Sweden ay tahay way aad ugu soo hadli waysay kamaal iyo hani markay isguursanayeen oo aad u dhihi waysay kamaal aroos ku galay waa qalad 4 bilood ka hor uu arooska dhacay aroos qarsoodina ma ahayn oo social media la soo dhigay maxaa ugu hadli waysay ma kamaalaadan daawanin xitaa caruurtaada inay daawadaan laga yaabo marka ruuxaad arooskiisa social media ku aragtay 5 bilood ka hor hadda maxaa dhaliyay inaad ka soo hadashay marka taa wali tuhni ugu taagan marka ruuxa markii waranka lagu taago waxa wanaagsan inuu gartiisa qaadan karo laakiin ma aan warankii lagu taagay intuu la baxo ruuxa kale inuu ku taago marka hadalkaada meesha ugu baxa talentina brankiga lagu sheegayna talent u baahan yahay teeda kale aniga director aan ahay filmaantan sameeya musalsalaadkan sameeya ya reerkaada qaar ka mid ah ayaan ku madadaaliya qaar aad ku xiran tahay ayaan ka mid ahay xigmadahooda aad sidaan u dhuuxdo war qabiil haddii horumar iyo hal abuur iyo karti intaba laga dhaxlaayo annagaa 60 sano isgaraacayni annagaa ku faa'iidi lahayn qabiil waa qurun yaa aqoontu waxbay hagtaa akhlaaqdu waa wanaag haddaad tahay waayo arag aqligu waa ku ilaas war aqligaa shaqeey damiirkaa shaqeey yaa yuhuud maa la dagaalamaysaa markaa ruux kale qabiil dartiisa kula dagaalamaysa qadiyadaada ha noqoto qadiyad qaran qalbigaada qurunka ka saar yaa waxaan la yaabanahay ruuxii qabiiliste ah qurbaha ku nool qabyaalad u dagaalamayo cunugiisana khaniisnimo leh u dambayso waayo adi qabiilistanimo markaa starbucks u fadhisid ama game aad qabiilnimo ku dheelaysid cunugaada khaniisnimo u dambayso waayo iskuulka waxa lagu baroyaa hey young boy man can marry another man nin kale waa aroosi karaa la baroya wiilkaada aabihii uu la tashan lahaa aqliyadiisii saxi lahaa waxaan waa qaldan yihiin dhihi lahaa game galisoo ku mashquulsan yahay iyo qabiilistanimo yaa gabadhaadana Terence Riley iyo Antonio Lopez aroosa iidan waxay ku leedahay aaba nin Jamaican ay aroosi maxaa bedeli kartaa xalwadeyda kaftan iyo farka ciyaar lagu qaati wiilkaadana yaa laba xaas la maqli jirtay laba nin loo noqonaa laba nin hal mar isla aroosis wariya qabyaalada nagala tagay iyo qurunka iyo baqtiga wadaan nagala taga walaalkayga laakaha meesha aan ugu gudbay taliye tusaale inta u qaado waa talo walaalnimo waxaan u gudbaa oday yar oo dabeel qabo 70 jir YouTube ku bilaaway asaga dhan aad u maleysay ruuxaamo inay ku furan yihiin oo ilbaxnimo ay ugu horeysay YouTube waayo waa mar uu ka hadlo laba isfurtay laba isdagaashay laba isku dhacday talentigiisii uu ku soo koobmay inuu isbitaalada wixii ku umula iyo wixii ku kala taga iyo wixii guryaha isku dagaal inuu reaction ka bixiyo waa mucaashaq wareerayo xigmadna ka raadiya xigmadii uu ka tagay sayidka asxaabul qubuurtiina ay ka fakan wayso xigmadiisii ay ku soo koobantay sayidka muxuu yiri mucaashaqi boodharina muxuu ka dhintay marka kaan waxaan rabaa isla hadalkiisii inaan ku karbaasho bal ila daado isaguna arrinta uu ka hadlay laakiin oday soo qurux ku dhiigle laabtaad ka jeclaatay laayahana buu yidhi libaaxba ma jooga laalays inama yaryar oo afgarooca oo bilaa xikmad ah oo aan aqli badan lahayn ayaad la gogaalaysan jirtay laakiin sayid cabdullaahi xasan wuxuu yidhi juq waxaan u soo idhi libaax jalabutaynaya juq baad soo tiri kayn aarartiifaan baad juq soo tiri 20 sikin baad soo qaldantay qurux ku dhiiglow 20 sikin baad soo qaldantay laakiin xisaabta gasho oo ogow 200 oo daqiiqadood inaan ku soo wacayo waana isu soo laabanaynaa aniga iyo adigu wixii aad samaysay iyo gefkii aad gashayna waad ogtahay eegay dhammaan wadda Soomaaliyeed meesha joogta horta waxaad tiri kayn libaaxyo ay jiiftaad soo gashay adigoo ilaahay ku karaameeyey oo suuradii tii ugu qurux badneed ilaahay uu sheegay inuu bini aadankiisii ka abuuray xayawaankan aqli iyo garaad ku dhaafay inaad libaax isku tilmaamtid horta waa kuu garaad yari teeda kale boodhariyow hadda haddaan ku dhihi lahaa waxaad tahay xayawaan waad xanaaqi lahayd balse waxaad ku qanacsan tahay inaad adiga nafsadaada aad ku tilmaamto xayawaan oo aad isku amaanto inaad libaax tahay adigoo weli taagan mustawihii xayawaanka oo ah libaax waxaad heli kartaa waxaan ahay yaa nin rago lixqaad ah
taa ku faani kartaa ama waxaad dhihi kartaa nin rag waxaan ahay yaa birta calaashada taa ayaad inaad ku faanto kuu sharaf badneed 20 sikin baad soo qaldantay qurux ku dhiglow 20 sikin baad soo qaldantay laakiin xisaabta gasho oo ogow 200 oo daqiiqadood inaan ku soo wacayo waana isu soo laabanayna aniga iyo adigu teeda kale waxaad tiri 20 second ayaad igu soo qaldoontay balse waxaan ku soo wici doonaa 200 oo jeer 200 oo jeer markaad isoo wacaysid islaan hinaasan oo aanaa kale la guursaday ma tahay adig ya saad isoo wacaysa waayo gabadha markay masiirto ama ay hinaasan tahay waxay wacdaa ninkeeda marna masruuf ay ka raadisaa marna way caaysaa maalintiina sida ruux waalan oo kale 100 jeer ay wacdaa marka adiga 200 oo jeer markaad isoo wacaysid ma islaan aan la guursaday tahay adig saad isoo wici kartaa 200 oo jeer mustawaha ragga wuxuu ku qurxoyaa inaad dhahdid 200 oo jeer aan ku soo fariisana anigoo ku karbaashay laakiin maxaad iga soo wacanaysaa ma gabadhan shukaansada tahay adig xisaabta gasho oo ogow 200 oo daqiiqadood inaan ku soo wacayo waana isu soo laabanayna aniga iyo adigu marka 200 oo jeer aad isoo wacaysid xeerka ragga ma ahan inaad adiga bidaxan ka lushaa inaad dadka la hor imaadide waxaad dhahdaa 200 oo jeer aan ku soo fariisana anigoo ku karbaashay anigan waxaad iga sugtaa 300 oo jeer inaan dhareer kaaga keeno waayo youtube-ka adiga waxaad ku soo gashay 70 jir anigana waxaan ku soo galay 20 jir mustawahan hadda youtube-ka ku dhex fadhiyo adiga markaa da'dayda la ekeed waxaad ahayd geel jir laakiin aniga 20 jir ayaan bulshada ku madadaalina markaad isqabtaan 70 jir iyo 20 jir firfircoon oo weli aanan guursanin ruuxii libinta helay adigay sharxaad kaaga baahan tahay intaanan ku sharxin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu